in jidka isku xira ceel macaan ilaa inta ka dhaxaysa Kaaraan wadadaas ay noqotay wada aad iyo aad u xismad badan u ciriiri badan cid kastoo qashin magaalada ka soo qaadana ay ayadu iskaga rogto ay noqotay meeshii loo sameeyay inaan la gaarsiin habeenkii lagu shubo waqti il kala gadoonka oo la moogyahay lagu shubo marka waxa dhacday in aan wadadaas nadiifino kadibna aan u sameeyno dad joogto ah inaan meeshaas wax damba iyo dib damba aan wax loogu sii shubin sidaas darteed marka waxaan u sheegaynaa bulsho kastoo Soomaaliyeed oo meel kasta joogto gaar ahaan shacabka degmada Kaaraan nadaafadu waxa weeyaan nadaafatu nisful iimaan nadaafadu waa iimaanka barkiis waxaanu leenahay marka cid kastaba ha ka qabato gurigeeda hortiisa wadada horteeda martaa gurigeeda sidaba ay u jiif meesha ay jiifanaysa ay u nadiifido inay u nadiifiyaan ayaan maartay u soo jeedinaynaa wada kaste qashin yaalana inaan maartay maanta insha inaan shaqadeedii aan haynoon maartay iyadoo waxyaalo qashin dambe yaala aan laga tagay waxa ka dhacay Argentina laba nin oo shabaaba laba bamba wata ayaa la qabtay mid kamid ah bambadii inuu tuuro ayuu isku damcay rag qabanayay ayuu inuu bambadii ku tuuro oo isku damcay wala toogtay midkii kale tan waa iska tuuray labadoodii midkii isku dayga sameeyay waa u dhintay midkii kaleeto asigana waa la soo qabtay labadii bambo iyo ninkii dhintay iyo ninkii dhaawaca iyo ninkii sheeg la qabtayba waxaan u gudbinay taliska nabadgelyada xalay waqti dambe ahayd meel baaritaankiisa iyo ma aan gelin oo taliska nabadgelyada u gudbinay